xildhibaan maxamed axmed dhakool ayaa 39 cisho kadib xoriyadiisa dib u helay sida warkaasi markale inoogu eegayo wariyahana Faisal Yuusuf Kacaan oo inooga soo warramay magaalada Hargeysa. xildhibaan maxamed axmed dhakool oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo muddo 39 maalmood ku xidhnaa xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa ayaa markii la soo daayay waxa uu ka hadlay siyaabihii loo maray xarigiisa kadib markuu maalintii shalay toole uu dib u helay xoriyadiisa. xildhibaanka ayaa waxa uu ka hadlay qaabka uu helay xoriyadiisa iyo isagoo sidoo kale u mahadceliyay shacabweynaha reer Somaliland sida uga qayb qaateen inuu xildhibaanku dib u helo xoriyadiisa. inaan rabo laba kalmadood oo kooban inuu ku aan shirkeyga jiraad maanta ku yar tilmaamo mid koobaad waxa weeyaan mahadcelin waxaan mahadcelinayaa xarigeygii cid allaale ciddii Somaliland oo u dhibay ama si sharci ama si sharafeed oo aan ugu horeysiyo golayaasha qaranka shirgudoonadooda waliba gudoomiyaha guurtida oo arintaa isagu ka hadhi waayay habeen iyo maalinba ka hadhi waayay isagoo u arkayay arrin sharci ahaan aan habboonayn sharaf ahaan aan habboonayn waxaan ku xijinayaa garsoorka maxkamadda oo qaran ahaanna qiimo weyn arintaa ku yeeshay qof ahaanna cadaaladdeydii iyo damiirkaygu sidii uu dareemayay maray waxaan ku xijinayaa bahda saxaafadda oo maanta indhaha keliya ee Somaliland ay wax ku aragto ama Soomaaliba ay wax ku aragto oo wixii saxanna taageera wixii qaladaad ku jirana mujtamac u bayaariya أنا أقول لها سحافة حرير ما نهين هذا وحي قد لما إن شاء الله وحن ترقرينيا بعد سحافة إن عن آذياد وقنا من نقول تاجره وحكون أمهد علينا يا أو آذياد أمهد علينا يا أوركا قرينا السومالي لان وأرنتها عن هبيري ما نتون كفريسن شرعي هان إيو ضدني ما هامبا دمير كود آذياد ضمغي وحكون أمهد علينا يا أوركا حقوق الإنسانك ويقول بتشيلك ويقول إيمانية وحالتayda caafimaad iyo tayada moral labadaba eegay iyagan aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa odayaasha madasha walbarigii hadlay xasan guure oo taariikh weyn Soomaaliland ku leh hadalkiisana uu yahay hadal qalbigayga aad iyo aad u daweeyay waxaan kaloo mahadcelinayaa oo iyadana aan la hilmaami karin doorkii weynaa ee ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogto ay arinta ka qaadatay deegaan qof hadday salaadiin tahay hadday mutacalimiin tahay hadday wax garan tahay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa ururka weyn ee aan u maleynayo hadda Soomaaliland mustaqbalka aan lahayn ee ah bahweynta ururka wadani siyaasiyiintiisa gudoomiyihiisa ningarboodkiisa oo aan arkayo dadkii aan ka tirsanaa wuxuu jeclaa in aan ahay oday baadi oo beerka lagu dhufto isaguna oo aan ka tirsanin waliba wuxuu damiirkiisa iyo dadnimadiisaba u muujiyay inaanay arinta hab kale la dhaqmay oo hab gobonimada Soomaaliyeed iyo dawladnimada midna ku wanaagsaneen iyadana saas aan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay wixii farta meel kale u taagado ilaahay cafi toostiisa oo aanu ka mid ahay ilaahay baa cafiska weydiisanay arinta taana intaasaan kaga waxaynayaa mar labaad waxaan aad iyo aad mahadcelinayaa odayaasha qabaa'ilka isoo xilqaamayay waliba odayaasha meesha baragol oo arinta iyadu ka hari waayeen markii arrimaha sharcigu dee muran galay iyagu si gaar ah isu xilqaamay aad iyo aad baan mahad u celinaya guud ahaan cid allaale cidii Somaliland ciidda Soomaaliyeed ee xarigaygaas damiirkooda iyo dadnimadooda u dhaawacay aad baan ugu mahad celinaya. Faisal Yuusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.